السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركلي عشرة دين حجاب أكاديمي ما أنتو حقادنا إنه حليق قانون variables إيسو كلا nesting قيب تاني كورس يعني ساس وحسمين دونا مركو ورسا فايل كان أولي قانون .scss كا إن مركي وبدلو css عادية ووصمي فولر marka waxaa wax yar ka bedelaysaa qaybta markaasi vscodekaada waxaad ku dhufanaysaa qaybta calaamada settingkiga kadib waxaa imaanaysaa comment plate kadib qaybtan oo user settings ayaa markaa ku dhufanaysaa hadduusan kuusoo qaban dabcan waa qoraysaa dabcan user settings haddaa qortid dabcan kana kuu soo bixi doono kadib click ay ku siinaysaa so meeshan ayaa waxaan ku daraynaa qaybta markaasi extensionkii aan soo dirsanay oo ku saabsan in markaa folder naloo sameeyo marka waxaa u muhiimsan in marka koowaad aad comma iska dhahdo kadib inta ay imaado kadib aad qorto quotationka waxaa dhihi doonaa marka life size compiler kadib dot format qaybtaan isticmaalina kadib waa ku dhufanaya kadib waxaa weeye extensionka uu ku safgareyn doono dabcan dot .accessy qaybtaan markaasi ugu muhiimsan waxaa weeyaan meesha uu ku safgareynayo safe passka marka waxaad samaynaysaa nalka waad ka tiraysaa waxaad dhihi doontaa quotation kadib folder ayaa samaysanaysaa kadib waxaad dhihi doonaa stylis oo kale ayaa u bixin doonaa so folderkaas ayaa lagu safgareyn doonaa so haddii markaasi labadan aad dileedo styleka iyo soo kale stylekan kale oo mapka ahaa so waxaa samayn doonaa hadda inaa wax yar ku daro si markaasi loo sameeyo mar kale compile so waxaa samayn doonaa marka wax ku dari doonaa tusaale kale font size oo kale kadib isla markaa waxaa ujeedaa in markaasi la sameeyey folder markaasi styles ah folderka waxaa la gelin doonaa markaa stylekii oo ahaa css-ka caadiga ahaa marka waa kana waxaana markaasi muhiima mar walba inaad dhahdo marka dot styles slash style.css so marka folderkaas ayaa markaas laga fiirin doonaa css inuu ku jiro mar walbana sidaas ayuu sameyn doonaa marka qaabkaas waa qaabka markaas folder aa u samaysan karaysid marka waxaa isku arkayna waxa loo yaqaano variableska iyo sidoo kale nestingka variableska waxay qeexi doonaan reusable values qiimo markaasi dib loo isticmaali karo sida colorka fontia ama cabirada kala duwan tusaale kale primary color aa dhihi doontaa kadibna colorka aragtida ay ku keedsanaysaa colorka hadhow meel walba aad ku isticmaasho waxaa markaas ka maamulaysaa hal meel ayaa ka maamulaysaa hadhow marka haddaa u baahato in colorkan aad bedesho halkaa meel bis ayaa ka bedeli doontaa sidoo kale si practical u arki doonaa hadduu alidmo nestingka marka waa maxay nestingka wax kale maahan markaa sameynayno html caadiya waa taqaanaan haddii tusaale kale aad rabtid inaad sameyso header oo navigation oo kale waxaa dhihi doontaa nav kadib waxaa sameyn doontaa logada ayaa sameysanaysaa kadib waxaa markaas sameysanaysaa ul-kaada ama listia oo navigationka waxaa dhihi doontaa marka li waxaa dhihi doontaa home kadib waxaa dhihi doontaa about marka qaabkaan isku dhex gelinaysaa so isdhexgelinkaana waxaa loo yaqaanaa dabcan nesting ayaa loo yaqaanaa so waxaa dhehnaa services kadib qaybtaana waxaa dhihi doonaa li portfolio ugu dambeynna contact as kala ka dhigaysaa okay sidoo kale waxaa samayn kartaa qaybta kale inaad button aa u samaysato aad dhahdo button get started okay so marka qaabkan oo kale aad isku dhex gelisay ayaa stylkiisana aad isku dhex gelinaysaa uma baahnid mar walba inaad naaf aad kusoo celceliso si markaasi aa u style gareyso wixii markaas isku dhex jiro marka sidee loo sameynaa si practically ayaan iskula arkin hadduu alidmo so sidoo kale waxaa kale ugu muhiimsan waxaa waaye in markaasi uu kaa caawinayo in markaasi aad isticmaali karto sidoo kale sudo glasseska oo hoverka ah xitaa markaasi uu kuu suuragelina inaad isla meeshii aad ku dhex sameyso marka aragno marka si practical ah already marka hadda filekan uu ku xiran yahay waxaa sameynaa marka waxaa style gareyn doonaa qaybtan navigationka ayaa style gareyn doonaa logadaana soo qaadan doona hal mar anoo markaa dhihi doono logo.svg logada marka waxaa soo gelin doonaa qaybtan ayaa soo gelin doonaa so marka waxaa soo geliyay logadan logo.svg soo kale hero image soo geliyay iyo soo kale 5 icon so marka waa isticmaalaynaa 5 iconka qaybtan marka waxaa dhihi doonaa inta imaan doonaa kadib waxaa dhihi doonaa dabcan link kadib colon 5 iconki dabcan 5 icon.icoy dabcan extensionkiisa wataa marka si toos oo ku deenaynaa waxba ma bedeleyno so saa ujeeda uu soo qabtay so sida caadiga marka hadda waxaa bilaabaynaa inaan style gareyno so waxyaalaha markaas soo daleedi doonaa coursekan sidoo kale waxaa muhiima inaad markaasi taqaano si markaasi aad u barato coursekan hadduu alidmo so marka waxaa sameyn doonaa inaad kusoo baas gareeyo reset pageka oo ah margin iyo paddingka iyo sidoo kale font family iyo sidoo kale box sizing border box kadib waxaa sameyn doonaa inaad markaasi sameysto wax loo yaqaano variableska waxay kuu suuragelinayaan inaad markaasi aa wax ku keedsato kaasoo markaa uu dambeyn meel walba aad ku isticmaali karto marka waxaa dhihi doonaa qaybta ugu sareysa ku qoran doonaa waxaa dhihi doonaa variables
marka si aad u samayso variable-ka waxaa qori doontaa calaamad dollarka kadib variable name-kiisa ayaa sheegi doontaa tusaale kale primary colorka markaasi primary ah kadib colon ayaa dhihi doonaa kadib colorka aan rabo hashidismaalkiisa ayaa qori doonaa tusaale waxaa dhihi doonaa hashtag 00ff00 oo kale wuxuu noqon doonaa dabcan green ayuu noqon doonaa sidoo kale waxaa samaysan karaa in markaasi cabir aad ku keedso tusaale waxaa dhihi karaa calaamad dollar kadib waxaa dhihi karaa font size kadib colon waxaa keedsan karaa tusaale kale 20 pixel soo mar walba font size aawaco waxaa markaasi laga dhigi doonaa cabirkaas 20 ayaa laga dhigi doonaa taasoo micnaheeda tahay keliya inuu ii jeedinayo 20 cabirkaas inuu ii jeedinayo so almost hataa intii maana marka waxaa samayn karaa nav kadib waxaa dhihi karaa font size waxaa ka dhigtaa cabirka font size aa soo siina marka calaamad dollarka unbaa ku wacaysa haddana kadib font size ay dhihi doontaa so marka wixii navigationka ku jiro dhan waxaa laga dhigi doonaa 20 pixel ayaa marka cabirkooda laga dhigi doonaa so almost cabirkaas ayuu qaatay balse si aan u fahanno ama aan u dareenno inuu wax isbedelay 9 ayaa ka dhigi doonaa marka haddartan waxa weeye isma bedelay sababtuna waxay tahay in markaasi aan u baahannahay inaan compile aan dhahno meesha waxaan leenahay marka watch sas kadib wuxuu bedelayaa markaa saaskan ay u bedeli doonaa css caadi ah okay marka hadda waa fiirinaynaa isbedelka dhacay saa ujeed marka 20 ayaa laga dhigay qaybtan saa ujeedaan okay so tan mar walba usoo bixin waa iska xiraysaa mar walba aad css aad dhamayso inaad qorto ayaa markaasi watch dhehaysaa dabcan okay marka haddartan intaana sameynay haddartan isla fahanaa filaya qaabka markaa u shaqeynayso waxaa sameynaa marka styleka nestingka inaa idin tuso variableka marka qaabkaas u shaqeeyaa iyadoo markaa file kale la gelin doono waa arkeynaa oo markaasi lasoo import gareyn doono balse hadda almost markaa isticmaali sidaan ayaa isticmaali doontaa so marka hadda waxaa isla arkeynaa qaybta markaa nestingka marka waxaa waa tusaale kale awal marka hore waxaa samayn jirnay inaan dhahno nav kadib sawirka haddaan rabo inaan bedelo img kadib sawirkii aan bedelo haddana haddaa u baahanahay in markaasi sawirkii aan saas u bedelo haddana haddaa u baahanahay inaan bedelo qaybta markaasi ulka waxaa dhihi doonaa ul kadib waxaa dhihi doonaa ulkii inaan bedelo haddana haddaa u baahanahay li inaan wax ka bedelo waxaa samayn doonaa nav kadib ul kadib li ayaa dhihi doonaa so marka intaana sawir waxaa weeyaan selection ku samaynaysaa so sida caadiga markaa nestingka isticmaalisid wax walba intay soo geli doonaan imageka maadaama uu child uu nav uu yahay intuu dhex geli doonaa kadib image aa dhihi doontaa haddana ulka haddaa u baahan tahay nav iyo waxaas dhan ma soo celinaysid intaa wax dhihi doontaa ul so ma dhex gelinaysid dabcan imageka sababtoo imageka ma ku dhex jiro sooma wax dhex gelinaysaa naafkaa dhex gelinaysaa okay lidana meeshaan li ma dhehaysid sababtoo ah lida already wuxuu ku dhex jiraa ulka ku dhex jiraa marka sida caadiga htmlka haddii aan nestingka aad soo fahantay kana nestingkiisa saas camal oo u shaqeeya marka li oo kale hadhow saana dhihi doontaa marka sidaana markaasi aa u istaaljareynaysaa bedelka intaas sidaan u istaaljareyn lahayd marka tusaale kale hadda waxaa dhihanaa imageka widsi kadib waxaa dhihi doonaa 200 pixel qaybta ulkana waxaa dhihanaa dabcan display falaxy ayaa dhihanaa qaybta navbarkana sidoo kale display falaxy ayaa dhihanaa marka wixii gooni loo qorayay ayaa markaa waxaa la sameynayaa in markaasi lasdhex geliyo taasoo markaasi suurgelin doono in markaasi maantona aadan waxba soo dooran keliya hal mar naafka aad soo doorto mar kale aadan soo dooran wixii aad soo dooranaysa dabcan ay noqonaysa wax hoose ay isugu dhex jiraan oo keliya okay so marka intaas waxaa weeyaan qaybta markaasi sida loo sameeyo sida loo hagaajiyo marka nestingka marka fiirino watch saas ayaa dhihi doonaa kadib waxaa markaas laga dhigi doonaa css caadi ah haddaa fiirino css caadiya saa ujeeda nav kadib nav image kadib nav ul ayaa la dhahay okay mujeda so markaas sida caadiga css ayaa loo qoray marka nestingka very important waaye saa hadduu fahantay markaas u shaqeyn doontaa let's see marka haddaa fiirino browserkeena marka ujeeda dabcan navigationka waxaa la sameeyey flex kadibna dabcan ulkina flex ayaa la sameeyey marka alignmentii wax walba hagaajinaynaa dhexdaananu kusoo aadinaynaa okay for now marka qaybta navka waxaa dhihi kartaa justify content waxaa isticmaali kartaa around space around sidoo kale widsi waxaa ka dhigi kartaa inaa 85% kala isticmaasho kadib aad dhexda keento okay of course marka dhexda la keeni doonaa space marka baarina isticmaali doonaa kori hoos marka waxaa dhihi doonaa almost 10 pixels ama 20 pixels kadib waxaa dhihi doonaa 0 pixels okay so meeshaas marka waxaan ku dhameynaa qaybtaas waxaa kaloo muhiima alignment inaad center dhahdo align center okay kadib marka waxaa la sameyn doonaa in markaas sidaa loo sameeyo okay qaybtan dhexe dabcan ulka waxaa weyn styleka ka tiraysa oo dhibcaha waxaa dhihi doonaa list style none
okay qaybta markaas jaabka u baahan tahay markii inta laga hadlayo waxaa dheeraa markii jaab waxaa siisaa 15 wixii markaasi oo markaa kula qurux badnaada ayaa markaa jidhidaysaa okay so waxaa jidhidaya markaa 20 cabirkan markaa waxaa jidhidana inaa yareen so cabirada markaas waa keedsan kartaa okay cabirada marka tusaale kale haddaa artid cabirada waa keedsan kartaa magacyo kala duwan oo bixin kartaa waxaa dhihi kartaa markay noqoto headingka ama ciwaan weyne markay noqoto waxaa dhihi kartaa heading waxaa jidhidi doonaa 35 oo kale waxaa dhihi kartaa markay noqoto heading 2 aa dhihi kartaa haddana heading 2 waxaa jidhidi doonaa 25 waxaa dhihi kartaa touchstii caadi ah touch size ayaa u baxsan kartaa qoraalka caadiga waxaa dhihi kartaa tusaale kale 15 pixel oo kale just like that saas kale u isticmaali kartaa so marka hadda UL ka kale qoraalka caadi waaye ama LI da geli kartaa dhib malahan so marka waxaa samayn kartaa waxaa sii kartaa touchstii size ka sii kartaa waxaa dheynaa marka calaamada doorka qoreyna kadib touchstii size ayaa dheynaa okay marka 15 noo qaadan doonaa almost wax yar uu yaraan doonaa marka hoverka marka haddaa rabo inaad sameeyo waran okay hoverka intaana sameynin qaybtii LI da waxaa dhihi doonaa cursorka samee horta hore cursor pointer marka LI da haddii hover la siiyo mid walbo waxaa rabo tusaale kale color markaasi primary in la yidhahdo okay colorka primary aa fiirino so colorkaana ka dhidi doonaa sida caadiga hadda waxaa rabaa haddii LI da mouseka la dul geeyo in markaa hoverka stylekiisa la bedelo so hoverka sida caadiga meesha markii la joogo waxaa la samayn jiray in intaan haddana dib loo soo doorto in dib loo soo doorto kadib la dhaho hover kadib saas markaas loo sameeyo kadib saas loo sameeyo marka hadda markii inta la joogo ampersand unbaa la isticmaalaa ama calaamada anda ayaa la isticmaalayaa marka waxaa qoraysaa anda ama ampersand anda markaa sameyso waxaa sameysanaysaa sudo jalaska aa u baahan tahay marka waxaa dhehna tusaale kale colon kadib waxaa dhihi doonaa hover kadib waxaa ka dhihi doonaa colorkiisa bedeli doonaa waxaa ka dhihi doonaa marka colorka primary ah waxaa dhihi doonaa marka primary colorka ii samey marka haddaa fiirino meeshaan imaan doonaa hover haddaa sameysaa ujeed colorka uu isbedelaya marka sidaa fudud waxaa loo sameyn karaa in markaasi loo istaal jareeyo qayb markaasi navigation oo kale iyadoo markaasi dhammaan istaalka oo dhan la isdhex gelinayo si fududna loo istaal jareynayo okay hadda marka waxaa istaal jareen UL-ka iyo soo kale IMG soo buttonkana meesha uun buu ku dhex jiraa meesha uun baa saas uu soo dooranaysaa marka waxaa dhihi doontaa button kadib waa sameysanaysaa tusaale background colorkaa rabaa keliya waxaa wacan doonaa marka variablekii waxaa dhihi doonaa primary marka hadhow haddaa rabo inaad colorkan bedelo labada meel ma ka bedelayo meeshaan iyo meeshaan kale aad ku isticmaalay kama bedelay sababtoo ah meeshaan uu yaalaa meeshaan un baa ka bedelaa so almost meeshaan markaa ka bedelo meel walba aad ku isticmaalan waa la bedeli doonaa dabcan faa'iidadii hore oo CSS variablekii hore uu lahaa un buu leeyahay dabcan so markaa hal mar kale istaal jareynaynaa badin ayaa dhihi doonaa so almost intii markaasi aad isdhahdo aad u fiican tahay ka dhido intaa labada dhinac 12 ka dhidinaynaa intana waxaa ka dhidinaynaa 8 oo kale okay colorka waxaa ka dhidi doonaa white kadib cursorka dabcan border none okay so marka hadda buttonka intaan style siinay waxaa sameyn doonaa marka hadda buttonka waa kana qaybta marka waxaa badin doonaa x-ka kor iyo hoos 12 sorry qaybtaana markaas yara badiyey so dhinacana rabay marka x-ka marka hadda waa kana buttonka so hadhow marka hover haddaa rabo inaad ku xiro si fudud marka buttonka mar kale ma soo dooranayo so anuu ku dhex jiro waxaa dhihi doonaa ampersand ama anda dhihi doonaa kadib hover kadib si fudud marka bracketkaana furaya so haddaa rabo marka inaad primary inaa marka xajoyr light ka dhido marka primary light aa sameysanaa ama haddaa rabo inaa xajoyr dark ka dhido waxaan dhihi doonaa primary lighter ama daga ayaa sameysanaa so xajoyr light aa ka dhidi doonaa qaybta iftiinka usoo wadaya ama haddaa dark ka dhidisna qaybtaana usoo wadaysa dabcan okay let's see marka haddaa hover dhaho waxaa background ka dhidanaa primary lightka background ka dhidanaa marka qaybta primary lighter so haddaa hover siiyo marka ujeedaa isla markii colorkii xajoyr waxyara laga bedelayaa so marka sidaan fudud navigation qurux badan ku sameyn kartaa adigoo markaa isticmaali doono nestingka featureka ee saas uu leeyahay oo ah mid ka mid ah featureska aad u muhiimka ah ee uu leeyahay saas. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.